hadda maaragtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaali seetiin horta waa iska bilaabay maaragtay waa iska bilaabay sheekada anigoo iska bilaabay arkibo because waxa igu jira wax kale waxaan soo wada wax kale fiiri adiga noolaa tahay mugtay gabadhii horta maanta gabadhii waxaa la xukumay oo gabadha dishay naagtii gabadha dishay waa la xukumay ugu dambeyn dilto insha Allah xukumay talo ma la fulin doonaa ama waxaa waaye waa iska dhaafi doonaan ma la aqaana oo weeshiin doonaan intaasoo cunuga dhashay intaasoo cunuga dhashay bal hadda intaasoo cunugna waxaa waaye rajo ka dhigtay gabadhiina waxaa waaye way dhibaateysay oo saasay u dishay ilmihii hooyada dhashay baa dhib qabta hooyadii dadkii hooyo u ahayd baa dhib qabo ma dhacdeen qofkii hooyo u ahayd baa dhib qabo ani maxaa is dhahay makasaysiin gabadhaasayta ma liska dayn doonaa oo bulshada iyo shacabka ma dayn doonaan mise waa la dili doonaa maxkamadan dilta sheekada ee ku xukuntay laakiin marka la gabadhaasayta waa la dilaa la ka waran ku farxay maxkamadda daawanay dadku waa marka ninka qareenkan dhigine garsoora markuu dhahay hodan hebel waxay ku xukuman tahay dil toogasho marka la waa maxkamadda dadka isla qayli aan meesha soo daawanay waa ana dhinacan ka qayli gabar waa dilka ugu horeeya oo ku farxan waxay daarama aqaane gabadha miskiinta sayta kana xayeeleysa u malayna waa dilka ugu horeeya dhahayba gabar maxkamadda inaan taagina isku maray maxkamadda dhexdeeda ku tay maxkamaddii oo meesha loo xukumay gabadha inaan taagina isku maray gabar ajiib badana ya noolaba ku farxahasayd noola aan ku farxin abal waayba noolaba aan ku farxin kuwa taayeero cid nila daawanay hataa waa ku farxin marka hadda xaq daran tahay oo dadka xaq darra ku dishid saas lagu farxa dilkaaga saas loo jeclaana dilkaaga iyo dhimashada saas loo jeclaana inaad dunida dhaaftay la jeclaana sababta waxa si loogu farxa keenin waxa way xaq darrada ay gabadha miskiinta ay ku dishay taas anaga keentay ma jeclin anaga inaan qof muslim xaq laga galo Soomaali ha israacada Soomaali Allahu akbar